السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhaqdhaqaaqa nabadda Soomaaliyeed maanta wuxuu soo gudbinayaa tixanihii aan ugu magac darnay dowrkada ka qaado nabadda. Tixanaha waxaan ku bilaabaynaa ciwaanka ugu horeeyay ee ahaa dowrka dhalinyaradu ay ku leeyihiin dhismaha nabadda. Maanta waxaan ku qaadan doonaa ciwaanada kala ah sababta aan u doorannay. Waxaan sheegi doonaa qodobka ugu horeeya inay noqdaan dhalinyaradu. waxaan ku xijin doonaa waxyeelada dhalinyarada ka soo gaarta colaadaha. waxaan ku xijin doonaa dhalinyarada iyo ku lug lahaanshahooda xagga colaadaha. waxaan ku xijin doonaa awoodda dhalinyaradu ay u leeyihiin ka qayb qaadashada dhismaha nabadda. waxaan ku xijin doonaa kaabayaasha iyo waxyaabaha u fududeynaya dhalinyaradu inay ka qayb qaataan dhismaha nabadda. ugu dambeynna waxaan ku soo gabagabeyn doonaa tala bixinta. nuurow waa sidaa sheegtay dhalinyaradu waa qayb ka mid ah bulshada waxayna kaalin togan ku leeyihiin bedelidda colaadaha nabad iyo sidoo kaleeto dhismaha bulsho nabadeed iyo dimuqraadiyad. marka aan fiirino waxyeelada dhalinyarada ka soo gaarta xilliga colaadaha, inta badan dhalinyaranimadu waa xilliga qofku uu ku jiro koriinada jirka, koriinada maskaxda, koriinada dareenkiisa bini'aadanimo. waa xilliga ugu muhiimsan ee qofku uu ka shaqeeyo magaca marka uu weynaado loogu yeeri lahaa. waa xilliga ugu horeeya ugu wanaagsan ee uu dhiso sumcadiisa. waa xilliga ugu munaasabsan ee go'aamo cusub uu qaadan karo. waa xilliga ugu munaasabsan ee uu diyaar u yahay isbeddel inuu sameeyo. haddaba intaas marka qofka dhalinyarada ah xaaladiisu ay ku jirto, waxaan fiirinaynaa marka qofkii oo xilligaas isbeddelka ku jira, qofkii oo u baahan in noloshiisa dareen cusub, perspective cusub iyo himilo cusub bulshada inuu u yeesho raba marka xilli colaadeed uu ku soo aado oo qofkaas dhalinyarada ahi uu ku jiro jawi colaadeed. waxyaabaha inta badan saameyn ku yeelan doona waxaa ka mid ah oo saameynta ugu horeeya noqon doona in lagu sameeyo waxa loo yaqaano forced labor, in lagu sameeyo oo ah in si xooga lagu shaqaalaysiiyo, in waxa qayb ka noqon kara colaadaha jira lagu qasbo inuu ka qayb qaato. waxaa qayb ka noqon kara waxyaabaha waxyeelada dhalinyarada soo gaara rajo la'aan tiro badan inay ku dhacdo. waxyaabaha kaloo inta badan ku dhici doona waxaa ka mid ah shaqo la'aan tiro badan inay dhacdo, taasoo ku kalifi doonta in lagu qasbo markaas xaaladihii colaadaha. waxyaabaha kale inta badan aadka u maaragtay saameynta leh ee ku dhici doona waxaa ka mid ah maskaxiyan ama mentality ahaan. waxaa laga yaabaa qofku inuu ku agoontoobo, waxaa laga yaabaa eheladiisii inay maaragtay ku waxyeeloobaan colaadaha. waxyaabahaasoo dhammi waa saameynta guud inta badan ka dhasha xilliga colaadaha. ugu dambeyn qodobkaas marka waxyeelada marka la rabo in laga gudbo oo qofkii colaadihii inta laga baxo la rabo in dhalinyaradii dib loo kabo, waxay qaadan doontaa waqti dheer in noloshiisa dib loo soo kabo. sida caadiga ah ee jawiga nabadeed qofkii inuu u fikiro in loo tababaro la diyaariyo waqti dheer ay qaadan doontaa. waxaas waqti la soo maray tababaro isbedelada xilligii colaadaha waxa dhan waxay ka go'an yihiin cimrigiisa. marka waxaa laga yaabaa waqtigu haddii uu dheeraado colaadaha in qofka waqtigiisa inta badan markii colaadu ay qaadato in niyad jab noloshiisa ah inay kaliftaa laga yaabaa. waxaan ku xijinaynaa ciwaanka kale ee ah dhalinyarada iyo ku lug lahaanshahooda colaadaha. sidaan soo sheegnay inta badan waxaa laga aaminsan yahay fikirka dhalinyaranimada in uu yahay actarka ama qofka ugu horeeya ee colaadda saameynta ku leh. aragtidaas marka dabcan inay saxan tahay inay qaldan tahay waa isla arki doonaa, laakiin waxyaabaha waxaan rabnaa kalifo inaan isla ogaano. xilliga colaadaha inta badan qofka dhalinyarada ahi marka shaqo la'aan badan ay ku dhacdo, marka xilli colaadeed uu ku jiro, waxaa badan inuu qofkii jawiga environmentiga uu ku ababayaba inaysan shaqooyin badani ka jirin. environmentigaas marka shaqo la'aanta waxaa badan haddii qofkii eheladiisa cidi lahayd uu waayo, haddii uusan waxbarashadii heli karin, haddii rajadii iyo hoobkii tirada badnaa iyo bulshadii istaakulay jirtay meesha uu ka waayo, waxaa badan in xaryaha maleeshiyaadka, xaryaha maaragtay dadka colaadda ku lugta leh inuu ku koraaba dhacdaba oo laga yaabo in loo isticmaalo sida inuu maaragtay loo isticmaalo dadkan xogta soo baara ee da'da yar. waxaa laga yaabaa in loo isticmaalo
inuu cunadii u kariyo kale inuu u soo adeego kale wuxuu ku barbaarayaa marka xariyihii colaadaha laga horinayay inuu biri marka ka qayb qaatay colaadda waa wax jawi uu ku soo barbaarayba wax maaragtay qariiba ma noqonayso waxyaabaha kale inta badan laga yaabo maaragtay inay saameyn badan ku leedahay waxaa ka mid ah colaadaha xilliga lagu jiro inta badan waxaa dhasha wax loo yaqaano structural violence wax la yiraahdo structural violence waa in bulshadu ay yeelato wax la yiraahdo dabaqado kala sarreyn bulsho in ay jiraan in qofkii waxa laga yaabaa la yiraahdo economic ahaan ama waxbarasho ahaan level hebel ina soo gaartay uma qalanta waxa laga yaabaa in la yiraahdo marka position shaqo uu soo baxo uma qalantid positionka inaad timaadid sababtuna waxay tahay bulshada aad ka soo jeedid ayaa levelkaas ah taasi waxay ku kalifaysaa markay structural violence wuxuu kalifi doonaa in qofku niyadiisu ay soo gasho nolosha noocan ah liidata ee aadan fursadihii bulshada aadan ula sinayn macno weyn ma u sameynayso inuu nabad ku helo macno weyn uma sameynayso in maaragtay uu maaragtay ilaaliyo jawigaas maaragtay nabadeed marka waxa laga yaabaa taas lafteeda oo structural violence ama bulshada iyo dabaqadaha sameysma xilliga colaadda waxa laga yaabaa inay ku riixdo qofku inuu colaadii ka qayb galo intaas marka ayaduna waa ku lug lahaanshaha dhalinyarada ee colaadda